magaalada Hargeysa waxa ay ku taalaa dooxa galgudan ee deegaanka Oogo waxaana magaalada Hargeysa ay ka sareysaa biyaha badda joog dhan 4377 mitir. Hargeysa waxa lagu tiriyaa magaalooyinka qadiimiga ee la deganaa ilaa qarnigii 17aad waxaana qayb ka ahayd boqortooyadii Adal xilligaas oo ay ahayd meel lagu nasan jiray marka loo sii socdo magaalooyinkii facaweyna ee Saylac iyo Herar. Hargeysa qarnigii 19aad waxay ahayd magaalo si xawliya u koraysa iyadoo sanadkii 1940 uu Ingiriisku ka dhigay magaalada Hargeysa magaalo madaxda Soomaaliland ee maxmiyadii boqortooyada Ingiriiska. waxay Hargeysa sanadkii 1960 ay noqotay caasimad xor oo laga taagay calankii Soomaaliland iyadoo caasimada Soomaaliland oo diiwaanka caalamka iyo xarunta qaramada midoobay sidaas ku gashay sanadii 1960. nasiib darro maalmo yar gudaheed ayay Hargeysa ku weyday caasimadii Soomaaliland ay ahayd iyadoo Israaciil Jamhuuriyadda Soomaaliya ka dhigtay caasimadii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Hargeysa waxa korays ka daayo Israacaasi waxa uu ka dhigay midka aynu filimkan kaga sheekayn doono oo ahaa Israaciil qiirada iyo jibada ku dhisnaa ee aan la mahadin. Hargeysina ay dhaxal siisay in ay noqoto meel dhul kale la simay oo caasimad hadalkeeda iska daayo aan is oran karin halkan ayuu dad ku noolaan jiray. waxa sidaas uu galaynaay ahaayeen ciidamadii taliska Siyaad Barre ee la doonayay inay cadawga ka ilaaliyaan ayaa cashuurta ay dadka ka qaadayeen iyagii madaafiic iyo gantaalo wixii ay hayeen ay dib ugu duqeeyeen. burburka ciidamada taliska Siyaad Barre ka geysanayeen gudaha magaalada Hargeysa waxa ay ka duqeynayeen afarta jihaba. halkan aan ku suganahay waxa deganaa xaynta daamurka oo markaasi ahayd meel istiraatiijiyo magaalada Hargeysa si fiican ay uga wada muuqanayso. waxay u adeegsanayeen hubka culus oo halka kan yaalay waxaana ku burburinayeen gudaha magaalada Hargeysa iyagoo markaasi ku anducoonayeen in ay soo galeen way ku tilmaamayeen mujaahidiinta aslam kadibna ay doonayaan gabigeedaba inay baabi'iyaan. 88 ayaa film halkan ay iskaga duubeen hadda aan taaganahay iyagoo oo sharaxaya markaasi qaabka ay magaalada Hargeysa u duqeynayaan. Aweys Geedo halkan buu taagnaa waxaanu sharaxayaa xaymaha ay u kala qaybiyeen in ay magaalada Hargeysa ka duqeeyaan oo xayntan ay ugu istiraatiijiyeen marka aynu eegno. magaalada Hargeysa marka halkan la taagan yahay si fiican ay kugu muuqanaysaa iyadoo sida nimka ay tahay markaasi ay kaba yareen. waxaynu eegaynaa filimkaasi oo iyagoo iska duubeen markii dambana gacanta lagu dhigay bal qaabkii ay markaasi 88 halkan uga duqeynayeen magaalada Hargeysa. waxay ahayd cadowgii guriga galay gurihiina ciidamadii ay si fiican u faltami karin si loo naafeeyo ayaa kaliftay in madaafiicda la isticmaalo. haddaba way kala duwan tahay isticmaalka madaafiicda goobta dagaalada caadiga iyo magaaladu way kala duwan yihiin. haddaba qaabka dhismaha madaafiicda goobta waxa weeyaan dhowr xeemood baa ka kooban qaybta xeynta taliska guud xeynta daamurka iyo xeynta airborka masallax. kadibna markii la arkay in cadowga uu meel kasta soo galay waxaa la abuuray xeynta tan oo hadda anigaan hogaamiye tahay oo ah madaxa waaxda goobta isticmaalayaa xeemahoo dhan kuwa taliska guud kuwa daamurka iyo kuwa masallahba. واجبكم وكلا قيبسين هي قل والله واجب في آجل السيئين هي نافيسو أيها لقي دون هي كورنيل عبد الله الشارب شنو حكومي جري صدح ذا قوبود ميد كاميرا ee magaalada laga duqeynay يشتري إلا هي ماشية ربما مثل عرض فوقانتي سيدنا يجارك سلاس أيها إلا ما ننتي هوشة بلاوي إلا مالك ما أنت هوشة إذا حكى سألوا قفل لنا نلفي عنا وعنا ومريسا إلا هي هدفتنا وكما خلينا واتاس ولي وحكينا وابحث حبتنا يا أخوان waxaad u fiirsataa inta qumac madfac
qori walba barbar taala inta ay in kale oo inoo muuqan ayaa Hargeysa lagu ganayay. hadda waxaan ku suganahay xarunta taliska guud ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqtigaasi Hargeysa la burburinayay ee filimkan aan kaga sheekeynayna ahayd qaybta 26aad ee ciidamada qaranka waxa dabcan goobtan ay ahayd goob inta ugu faraha badan lagu qorsheyn jiray weerarada la doonayay in lagu burburiyo gudaha magaalada Hargeysa waxa halkan fadhiisan jiray saraakiisha u sarreeyay kamid Axmed Warsame iyo Siyaad Daawud oo halkan xaruntoodu ahayd Yaanjeex waxay halkan ka hayay jireen maalin kasta burburka magaalada Hargeysa iyagoo qaybaha kala duwan ee aynu soo martay xayntii daamurka iyo masalaxada halkan ay ka hagi jireen waxana amarada ay ku siin jireen halkan inay magaalada Hargeysa dhulka la simaan oo la burburiyo waxaana muuqaalada aan ku eegi doonaa ay yihiin iyadoo xarunta taliska guud ee hadda ay ku sugan yihiin saraakiishaasi aan tilmaamay ee Axmed Warsame uu kawda ka yahay oo aabbo u ahaa dadkii burburiyay caasimadda Hargeysa waxa ay fuuli jireen marka ay doonayeen magaalada Hargeysa si fiican u arkaan dusha sare ee markaasi dhismaha weyn ee taliska guud ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhismahan ay xaggiisa sare fuuli jireen si ay magaaladu si fiican ugu muuqato burburkeedana ay u daawadaan 1988 ay cajalada isaga duubeen isla halka sare iyo gudahaba waxaanu eegi doonaa iyagoo halka sare saaran 88 amar ku bixinayeen magaalada si fiican loo duqeeyo muuqaaladaasi oo kuwa rasmi ah iyagoo iska duubayeen warbixin ay markaas ku sameeyeen sida ay magaalada markaas Hargeysa u burburinayaan waxaanu fuuli doonaa dusha sare ee taliska guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland waxaanu istaagi doonaa goobtii ay 30 sano ka hor taagnaayeen ay ka burburinayeen gudaha magaalada Hargeysa dusha sare aynu fuuli doonaa si aynu macluumaad dheeraad ah markaas ugu ogaano qaabkii ay howlgallada si u fulinayeen oo dabcan markaasi qayb ka ahayd howlgalladii ay fulinayeen halkan waxa laga eegi jiray subax kasta iyo mar kasta laga qorsheyn jiray sida magaalada Hargeysa loo burburinayo iyadoo amar laga bixinayo 88 hadii aynu dib ugu noqono halkan hadda kamaradu taalo waxa markaasi joogay oo fadhiya saraakiishu u sareeyay Axmed Warsame iyo Siyaad Daawud iyo Yaanjeex kuwaasi oo qiimeynaya amarna ku bixinaya in Hargeysa dhulka la simo markaas si axmaqnimo ah loo dundumiyo muuqaalkaasi ayaan idin soo gudbin doonaa iyagoo halka kan fadhiya oo sharaxaya sida Hargeysa u burburinayaan General Ahmed Warsame wuxuu iska dhigi jiray nin ahludiina oo wadaada haddana isagoo tustaxrogaya ayuu qiimeynayay tadan waxba galabsan iyo magaaladan sidii loo burburinayay duqeynta laga duqeynay dhulka magaalada Hargeysa waxa uu dheeraa in diyaaradihii ka duuliyay isla madaarka magaalada Hargeysa ay dib u duqeynayeen magaalada Hargeysa waxa duqeyntaasi lagu laayay dadkii rayidka ahaa ee ku noolaa gudaha caasimadda Hargeysa iyadoo intii xoog ahaydna ay nafta u la caratay xeriyihii qaxoontiga ee Itoobiya waxa dagaalkaasi ku nafwaayay inta la hubo oo kaliya 50,000 oo qof sida ay sheegtay hay'adda Amnesty International iyadoo kumanaan kalena aan lahayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen halkan aan taaganahay waa Radio Hargeysa koob iyo 30 sano ka hor sanadii 1988 markii laga saaray uun taliskii Siyaad Barre deganaa idaacadda waxa halkan yimi Allah u naxariistay Mujaahid Maxamuud Cabdi Shire oo ahaa aabihii saxaafadda Soomaaliland waxa waqtigaasi sharaxaya iyadoo hareerihiisana ay ka dhacayaan xabadihii dagaalkan isla idaacadda hareeraheeda uu ka socdo si muhiimadda ay xorriyatul qowl ku leedahay iyo sida idaacadda Radio Hargeysa waqtigaasi taliskii Siyaad Barre ay u dundumiyeen guud ahaanba dhismayaashiisa kaydkiisa iyo istuudiyadiisa waxa muuqaalkaasi uu duubay waqtigaasi iyadoo uu noqday muuqaalkii ugu horeeyay ee ka baxa ee caalamka markaas la geeyo laguna arkay sida taliskaasi uu dalka u baabi'iyay waxaynu eegi doonaa oo dib ugu noqon doonaa xasuusta koob iyo 30 sano iyo Allah u naxariistay Maxamuud Cabdi Shire oo halkan ka sharaxaya xaaladdu sida ay ahayd waqtigaas Radio Hargeysa, and as you can see, there are no government soldiers around.
Battle of Hargeisa is now 62 days old, and the Somali National Movement have gained ground. Siad Barre has bombarded Hargeisa and Burao continuously and indiscriminately. The Air Force of Siad led out resistance as the Popular Army had no air defense at all. As a result, homes, mosques, and schools have been reduced into rubble. Children, women, and civilians have been killed. Out of the ashes of Hargeisa and Burao, a new nation is born in the Horn of Africa. The following picture shows what has happened here. ciidamadii diktaatoorkii maxamed siyaad barre sida naxariis la'aanta ah ee ay magaalada u burburiyeen waxaad ka aragtaan muuqaalka magaalada ee foosha xun magaaladu siday u dhan tahay waa sidaad arkaysaan iyo si ka daran aargudasho bilaa naxariisa aayaheedii dhaxalkeedii wixii ay weligeed ku soo tabcaysay waa kuwa sidaas u baaba'ay sanadkii 1991 ayay mujaahidiintii ururka SNM ku guuleysteen inay dalka ku xoreeyaan taliskii Siyaad Barre dagaal dheer oo mood iyo noolba loo huray markii uu dalku xor noqday waxay dadku dib ugu soo laabteen magaalooyinkoodii oo Hargeysana ka mid ahayd iyadoo aanay haba yaraatee jirin wax suuro gelinaya kaabayaasha nololeed oo aanay Hargeysi lahayn leed iyo biyo toona waxa kaliya quuta daruuriga markaasi la helayayna uu ahaa qamadidii laga soo qaaday xiryaha qaxoontiyada Itoobiya taasoo dadku ay kuyu ugu jiraan in ay meelaha qamadidaasi lagu karinayo ay markaasi wax ka cunaan iyadoo meelaha wax lagu iibinayana ay ahayd meelaha qura ee markaasi wax lagu kala iibinayay gudaha magaalada Hargeysa oo cidhiidh ahayd waqtigaasi dalka sidaa dib loogu soo laabtay meelihii ugu horeeyay ee ay dib uga bilaabmeen arrimaha ganacsiga iyo bulshaduba waxay halkan imika aan taaganahay halkan iga dambaysa waa xer haruudha oo lagu iibin jiray waqtigaasi hawlaha kala duwan oo kadib markii dalka dib loogu soo laabtay noqotay meeshii ugu horeysay ee suuqa ka bilaabmo halkan waxay ahayd xarunta ugu weyn ee markaasi magaalada Hargeysa markii 19 iyo 22 dadku ay yimaadeen ay wada iman jireen waxaanay ahayd meesha uu ku yaalo hudheelka ugu wanaagsan waqtigaasi wax laga cuni karo marka laga yimaado degmooyinka xaafadaha maanta waxa laga yaabaa in degmo wal iyo xaafad waliba ay leedahay intaas oo hotel oo kuwa cuntada wax laga kariyo maqaaxiya laakiin waqtigaasi ma jirin xaafadaha dhexdooda maqaaxiya marka laga yimaado halkan ayuu ku yaalay maqaaxida ugu weyn ee markaasi wax laga cuno maqaaxidaasi waxa lagu karin jiray oo kaliya qamadida cunto kale oo la kariyaa waqtigaasi ma jirin dabcan waxa halkan ku yaalay sariibada wax lagu iibiyo iyaduna qayb ay ka ahayd waxa ku yaalay halkan suuqa ganacsi ee magaalada Hargeysa ay ka bilaabantay waxaanu eegi doonaa filimkaas aynu dib u eegi doonaa sidii xaaladdu ahayd markii dalka dib loogu soo laabtay halkan xasan shukri oo cali ayaa kamarada duubaya cabdilaahi maxamed daahir wuxuu kusoo dawladii kala dambeeyay wasiirka ka soo noqday ayaa isaguna filimkaasi markaasi oo kamid ahaa wariyaashii ruug cadaaga ah saxaafadan dibadda u taagay ayaa halkan mikrofoonka la dhaxyimi 19 ayanu dib ugu noqon doonaa ayaa halkan taagan xaaladdu sida ahayd qamadidaasi ma aha midho la sahlan karo ama anigu ma hayo sugaan aan ku sifeeyo baabuurta laga rogaa weli sidii baa loo kariyaa sidii baa dadku u cunaa wax kale oo u bedelana weli may arag caalamka iyo inta deeqda bixisaana gurmad lamay soo gaadhin shacbigan qaxay ee xabadda lagala daalay dabadeed qamadidu u noqotay midhaha kaliya ee noloshooda badbaadiya xerhadhuudha iyo eeriyada aynu joognana iyadoo la karinayana waa aragtaan iyadoo la cunayana indhihiinaan idinku tus inta imsaad siisaa 1200 kaliya ayaad ku iibsaa maxaa lagu darayaa alaab badan oo imkaan kaga faalo kariyo markan waxaan ka hadlayaa deegaanka Hargeysa oo kaliya dadka midiyaha isku soo faysanaya arkaysan cuntada hortaala waa calool kaliyo iyo wax la mid ah iyo wadne caloosha iyo wadnaha iyo kaliyahaasi dad bini'aadmiya oo magaalada Hargeysa jooga ayaa cuna oo ay ka iibinayaan iyaguna waliba way ka ganacsanayaan sidaas iyagu isbidaan ganacsadayaal kuwa ka iibsanayaan qaar wax iibsaday isbidaan cunto darrada taalla magaalada Hargeysa iyo baahida burburkii ka dhashay dagaaladii ayaana keenaysa xoolo badan oo waa tii dumarku oran jireen markay dhaaranayaan waxaasi wadnu iga yahay maanta waa la kala iibsadaa Hargeysa wadnaha dad baa iibiya dadna way iibsadaan marka cashuuri ma jirto iska qoqso ma jirto waxa ma jiraan waanu qatanahay waanu gaajoonaa diriiskii baanu xidhanahay aakayadanu sidana adoo maayra
aqalkaaga halkan ii yaala ya gurigaan soo dhigtaa ka imadada markaan soo rawaxo waxaan doonaa timir ruuc timir meelaha iga siisa timir baan ku qodin jiray qamadii baan weyn xataa marka waxba ma jirin golaha deegaanka rag iska qabso ku shaqeeya odayaala oo ka mid ah in fagaasa iyo in bootaan iyo rag wada waayeel ah oo reer Hargeysa aadan baradhahan iyo ka mid ah oo isxilqaabo iyaguba ya ayuun baa deegaanka oo ururiya marka magaalada xishaan ka ururinaa meel baan ku tuurnaa lacag male shahar male shaqaale male wax male rees male tiyaatarka tayrka qandooda gudsan oo moodo barihe barahan moodo la fay geel neef geelaho la qalay la feedhahe burburka ay taliskii siyaad barre u geystay guud ahaanba dalka Soomaaliland waxaa ka mid ahaa magaalooyinka caasimadda oo Hargeysa sidaan filimka ku arkaynay burburka ugu faraha badan uu gaaray halkan hadda aan ku suganahay waxa weeye bartamaha magaalada Hargeysa dhismayaashan iyo muuqaaladan idin muuqda waa Hargeysa 2019 imika waxaanu eegi doonaa kadib muuqaalo markaasi ku saabsan Hargeysa bal markii lagu soo noqday 19 sida xaalkeedu ahaa halka hadii inanka madaxiisa aan ku baneeyo bal u fiirso waa bir dhuuban oo leed subnaan jiray inta mid rasaas ah ee ku taala birta wixii ka buuran ee dhan waxaad garan kartaa inta xabadooda ay ku dhacaysa markaad aragto birta intii ku dhacday waa xabadii faqash ay ku ridaysay dadkii xabada rasaastaas lagu ridayay ee birta intaas mid lala helay waad garan kartaa inta laga dilay iyo inta laga dumiyayba fooqa ka shisheeya ee birtu ay ku beegan tahayna rasaasta ku taala tiradeeda balaad bay la tiri dabadeed tara qiyaas طريقة إنه تاجنا هو طريقة نمبر 1 وطريقي وجوري مستعمرات إنجليز قاعد يستوي كان يواجه دور يصدق صدق وجهنا دولتي سيد بالكويت وحيوك من مويان سنة كل سيار كل سياش كلام جينا في المكتوب وكل سيارة ده سنة إنه السلطة وقطرية dalkiisa dabadeedna kala horeeyay lagu dhawaaqay Jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka Jamhuuriyadda loo dhashay waxa uu sheegay inuu ku soo celiyo magaalada Hargeysa magaalanimadeedii waxa ku muuqata suuqweynihi halkan ay taaganahay haddii aad inuu magaalada Hargeysa joogtaan ma ahay waa fooqii jirdiisa buuqaas tirada badan ee aad arkaysaa wuxuu isugu jiraa bacadle iyo khudradley iyo weliba kuwa jaadka iibiya shay gudihiisa aad ka baadi doonto oo aanad ka helaynin ma jiro haddii aad baadi doonto quutal daruuriga iyo haddii aad baadi doonto wax kasta oo ku luxury-ga ka mid ah waxa ay caan ku tahay masalan inay kala lahaayeen suuqyadu bacadle meel hilibka lagu iibiyo meel lagu iibiyo kabaha oo kaliya meel alaabadu u kala gaargaar bay ahayd maanta doorkan haddii ay wuxuuna jiraan waa ilaahay mahad waxaanu helay waraaqihii isaga qabsada dadna waxa la halka baabuurta ka soo gelaysa berbera isaga qabso baabuurkii walba inta laga qaado oo isaga qabsaa oo shaqaalahan shaqeynaya ay ku qadeeyaan ya oo aan loo qeybay aniga weekana waraaqahan waan kala qoray anagu ma qadayno aniga iyo waxaan saxana aqalka Ismaaciil Ahmed Ismaaciil aniga iyo Ibrahim aniga iyo aniga aadan dhamac iyo Allah naxariis iyo Cabdikariim iyo ya Cabdikariim Cabdikariim saraakiisha dadsananta halka san saxana marka waxaan wax darqiya Allah baan ku soo ku noolahay leedisiga iska daa feenisiyaan lahayn marka waxa wada saxda eeg aanu banaan ma saxda halkaana salaam galow sir dakhliya halkaana maxaan ku Ibrahim ninka loo jiray in wada diid oo wasiirka dawladda ah yaa halkaana saxda halkaana waxa sadiqsi oo wasiirka diinta iyo qaafta waxaan saxnaa on maxsuul nixiyada ya marka ma jira aqalo iyo guriyo halkani waa xarunta madaxtooyada Soomaaliland oo markaas uu ka socdo shir lagaga arinsanaya sidii xaaladdan qalafsan ee dalku ku jira looga samata bixin lahaa waxaana shirkaasi fadhiya madaxweynihii xilligaasi ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali
madaxweyne ku-xigeenna uu ka ahaa xasan ciise jaamac iyo mas-uuliyiin kala duwan waxaanay qorshaynayaan sidii dalkan ay xaaladaasi uga bixi lahaa madaxtooyadu may lahayn leedh iyo biyo haddana waxaa ka socda shirkaasi iyadoo duruufta magaalada caasimadda hargeysa ka jirta ay kala sinnaydun madaxtooyadu xilligaasi bal intii suuragala iyada oo aynaan dhammaan wada joojin karayn bal dadka hala yareeyo soo gelitaanka magaalada hala yareeyo meelaha qaarkoodna sida miinadu ugu kala badan tahay ogeysiis baanu ka bixinay idaacaddan kasii jeedin markaa miinada iyada qorshahaas baan ugu talagalay nolosha magaalada hargeysa markii dib loogu soo noqday waxa ay ahayd mid maalinba maalinta ka dambaysa ka soo reynaysa waxa koray adeegyada ganacsiga iyo kaabayaasha dhaqaale ee nolosha gudaha magaalada hargeysa burbur badan dabadii oo dalka ku dhacay iyo wax kasta oo loo geystay dadkani waxyaabaha ay ku faani karaan baa waxaa ka mid ah ilbaxnimo raagtay iyo weliba aqoon waxaa kaloo u dheer intaasi ganacsiga waxaa jira dad badan oo shaqaa ku taqaaneen oo shaqadii inta isbedeshay shaqo kale ku foofay ninka halkaas soo fadhiya bidaar kale alaabtuna si dul waran tahay waa maxamed jaamac indha jacayl wuu ganacsanayaa wuxuu iibinayaana waa saacado rikoodho kamarado inta ku muuqata adiga waynu tegi doonnaa dahablayaashana way ka furan yihiin magaalada waxaa la mida iyaguna rag badan oo qoryaha saaraan jiray berigii iyo xabaddu ay dhici jirtay oo ah kuwii iska dhigay oo iminkana ganacsadayaala waxaanay hargeysa samaysay koboc fiican oo dhinaca meheradaha iyo suuqyada ah iyada oo la kala saaray suuqyadii isku rarnaa ee sariibadaha iyo kuwii ganacsiga ee kale waxaa bilaabmay nolosha ganacsi iyadoo dadku ay ku soo dhiiradeen inay gudaha magaalada ka furtaan meherado bilic iyo markaasi qurux lahaa oo lagu iibinayay dahabka iyo adeegyada kale ee qaaliga ah halkaasi oo ahayd meelaha ugu camiran ee magaaladu ay markaasi isugu timaada inta faraha badan le iyadoo magaaladu maalinba maalinta ka dambaysa ay noqotay mid bulsho ahaan iyo ganacsi ahaan iyo dhaqaale ahaanba sii koraysa waa habeenadii lagu ka dhaxaysa adduunka dhulka iyo joogtooda daraarayna soo maray shantoo dhan la saariyo ku xeeyd dhibaatadu inta dhigar la geystiyo ka dhacay ma maqashay daraarayna soo maray labadii isdhugataba mid kaloo dhex taagan meeshu oday waa dhirnamada ka dhaqaaqa odhan jiray inta badan waa dhaxal taariikhdu dhigaysa daraarayna soo maray ma dhisnaa la fanaaniinta qaranka ayaa iyaguna dhinacooda ka waday wacyigelinta iyo madadaalada bulshada iyada oo meesha keliya bulshada laga madadaaliya ay ahayd goobta khayriyada ee bartamaha magaalada hargeysa imikana haddaan la heshiinin hibashada haddaan la dawaydin hebel yaa lahaa la ilaawin himilooy walee gabalkaadha تلفنا كهاتين موي على جروحة الوعد
burburka uu taliska siyaad barre ka geystay dalka oo dhan gaar ahaan caasimadda Hargeysa barnaamijkan aan kaga sheekaynayna waxa waa mid aan loo aaba yeelin goobo caafimaad goobo waxbarasho adeegyo bulsho iyo goobo warbaahineedba waxaynu eegi doonaa ugu horreynba halka barnaamijka kan aan idiga soo gudbinayno oo ah wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo barnaamijkan soo saartay sida uu xaalkeedu ahaa ku dhawaad 30 sano markii dalka dib loogu soo laabtay dhismaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland ee waqtigii dalka dib loogu soo laabtay waxa uu ahaa muuqaalkan idin muuqda iyada oo meelaha hadda istuudiyada iyo qaybaha kale ay yihiin ay ahaayeen markaasi goobo gaadiidka basaska laga raaco waxay ahaayeen goob suuqa oo markaasi lagu kala ganacsado waxaana ka baxayay gaadiidka waxa deganaa xaafada waxa ka furnaa meherado wasaaradda warfaafintuna waxay ahayd suuq yar oo kharaabada oo markaasi ay burbursanayeen dhammaan intii dhismayaasha ku yaalay waa xusid mudan gudaha istuudiyada hadda la idiga soo warramay raadiyo Hargeysa waxa deganaa xaafado waxa ku dhashay caruuro waxa markaasi ahaayeen hoy qoysas ay deganaayeen wasaaradda meel kayn bay ahayd halkan oo wada garawaa iyo geeda iyo inkaara meesha dad fara badan baa deganaan jiray xilliyada dalka la soo galay oo dee barnaamijyadeena bay ku jirtaa idaacaddana dee degan yihiin marka dadkii laga raray suuliyaasha iyo inkaaraha iyo balaada meesha laga qoday hamaad malaynayn dee khatar ugu jira inay dadku ku daataan dalkan hawl adag baa loo soo maray hawl adag baa loo soo maray la doonayaa in la fuliyo wixii loo socday iskarab taaga idinkaa leh oo berritooda kuwa hoggaansanaya waxaa dib loo dhisay burburkii idaacadda raadiyo Hargeysa oo xukuumadda iyo bulshada Soomaaliland iska kaashadeen sidii idaacadda looga rari lahaa suuqyada iyo xaafadaha deganaa loona dhisi lahaa xafiisyadii iyo istuudiyadii idaacadaha ee burbursanaa idaacadda maalintii dhaweeyeen bilowna xashiishku albaabka taagnaa Hargeysa dhamma xashiishka ku furay ka farcishan fayday wadciga waa taas waan bilaabanaa waxa weeye ummaddu haddii ay dadaashay wax waanu bilownay dadkuna way bixiyaan imka lacagta shalay waxaa nooga soo diray qoladii Scandinavian Tax Pay noo soo diray waxa dhawan nagala qayb galnaa anaguna dhismaha idinkana waxaad ka rajaynayaa inaad wax weyn ka qaban doontaan idaacaddu intay laakayd iyo sida heedna waan soo marayna 3 kilomitir oo ideedkeed dawladda aan lahaynin radio waa dhaafa dhammaanta oo si wax dhiga dhigala weeyaan marka waxaan idinka baahnay all of you dayna mayno ilaa halkaa ka dhegaysataan waxaynu isbarbar dhigi doonaa sidii ay idaacadda raadiyo Hargeysa ahayd iyo sida ay maanta tahay muuqaalkan aad arkaysaan waa istuudiyada raadiyo Hargeysa oo burburiyay taliskii macaanka gaha 1988 markii ay dagaalada ku soo qaadeen dagaalyahanka SNM ay dib ugu xoreynayeen dalka muuqaalkan idin muuqda waa masaajidka Cali Mataan iyo sakada uu markaasi ka dhisnaa masaajidku waad aragtaan waxa xabad ku taala baldaya ninka ummadda Soomaaliyeed la dagaalameysay waa ninka masaajidadii ummadda islaamka ay ku tukanaysay ayaa sidaa loo burburiyay bal waxa xabad ku taala eega bal sidoo uu dumiyay eega arxan islaamnimo mid Soomaalinimo iyo mid shakhsinimo midna ma u lahayn ninka aynu la dagaalameynay waa dhulku Maxamed Siyaad Barre muuqaaladan imika idin muuqdaan waa isla masaajidka Cali Mataan ee hadda oo ah dabaqyada ugu dhaadheer iyo masjidada ugu quruxda badan ee caasimadda Hargeysa halkan aan taaganahay ee fooqa weyn dahabshiil ku yaala ee dhismayaasha faraha badan leh quruxda badan ay ku yaalaan xaalkeedu sidee bay ahayd markii dalka lagu soo noqday ee loo burburiyay kuwaas oo duqeyntii iyo cir iyo dhulba lagu sameeyay caasimadda Hargeysa ay ka dhigtay meel baabaa dad fara badan muuqaalka hadda iga dambeeya ay la kulmeen oo waliba jiirka daada yar ay arkeen iyadoo sidaas u dhisan waxaynu eegi doonaa hadaba bal muuqaalkani nooceeb u ahaa kor intii markaasi aanu dhismin meelahan goobahan iyo markii burburku uu ku dhacay caasimadda Hargeysa away fooqa Xaaji Cali Bootan ama ilmo Bootan loo dhigay oo ku oola bartamaha suuqa magaalada Hargeysa ahaadna wadada caanka ah ee dhex marta magaalada Hargeysa
guryihii u xigay dhinaca mise jaamaca waa qofkii yaqaana ee reer Hargeysa ayaa garanaya waxa uu adarkaysaan gurigii oo aan jirin oo madaafiic iyo diyaarad lagu baabiyey isaga oo aanay waxba ka taagnayn ديمك أركيسان داوديال waxa weeye fooq ku yaala magaalada Hargeysa oo uu lahaa xaaji aadan afqalo Allahumma naxariiste guriga waxa dhamaantiiba ku dhacay oo waxyeelay oo baabiyay kana dhigay waxa baabaa in madaaficdii artilleriga ciidan ku sheegay tariska siyaad barre ee ay sida naxariistarada awla dhaceen guriga waxa arkaysaan daawadayaal inuu ahaa guri laba dabaqa oo fooq ah imika si aad arkaysaan inuu yahay dhul lama degaan lagana guuray gudaha magaalada Hargeysa ee sanadkan 2019 idin soo gudbinayno iyo muddadaasi taariikhda ee dheer ee aan ka soo waranay labadaba ay ku nool yihiin laba jiil kuwaas oo qaarkood ay yihiin kuwa si fiican u xasuusan waxyaalihii ka dhacay magaalada Hargeysa dagaaladii iyo burburkii oo marka ay xasuustaan ama dib loo soo xasuusiyay indhahooda ay isku soo taagayso qiiro iyo ilmo wixii la soo maray iyo maanta akuye miyaa ilowdeen waroobkii inagu daayay iyo qaxii tarxumadii miyaa ilowdeen inaad irmaha dikarayo waan ooyaya markaan xasuusto markii aanu ka qaxnay eenu ku soo noqonnay ilaahay baan ku dhaartay dhulkan waxaad moodaysaa dhul gariirinu ku dhacay marnaba kumaad qiyaasi karaynin meel dagaal caadi iyo bini'aadan ku dhex maray laba bini'aadan oo isku laayay dabeedna waataanu qaxnay dabeedna waxaanu dhulkii oo siman dhulka la siman oo derbi maran oo lafahaaga uga baqanaysiyo ciid iyo meelad modayn cagaf la mariyay ayaanu nimi oo waxa ku dhacay runtii dadku kama sheekayn imika dadkan waqtigan jooga kama sheekayn karaan oo runtii haddaad muuqaal ahaan TV video lagu tuso mooyaane runtii waxa wadanka waxaan ka tagnay magaalada Hargeysa amran baan ka tagnay waxaan ku soo noqonay magaalada Hargeysa runtii aad moodaysay muxuu ahaay qoomamkii hore marka la halaago aad suran simraa qoom hore meeshan la halaagay deganaan jiray suuwan la horay diyaaradaha lagu rusheeyay diyaarado ayaa shacabkii lagu burburiyay iyadoo wada duusan oo wadadaan taagan miinada ku aasan tahay ayaan 19 soo noqonay waxa ku soo noqday anigu 19 sidee iyo 80 waan ka qaxay halka gudaafad baad moodaysaa arladaas oo dhan markaan anigu maalintaan imi gudaafad xashiish ayaad moodaysay dhagaxa balaayada saancadka yacni marbay magaalo noqon doontaa marnaba ismaan lahayn waxa iyaguna ku nool gudaha magaalada Hargeysa jiil da'yar oo ah kuwa ugu faraha badan leh oo muuqaaladan iyo burburkan aanu ka sheekaynayna aanay soo gaadhin may arag Hargeyso qamadi mooyaane wax kale lagu cunin ee waxa ay soo gaadheen Hargeyso haddii ay u baahdaan cunto ay hoteelada faraha badan leh kala duwan kay doonaan ka dalban karaan cuntooyinka Soomaaliland marka laga yimaado cuntooyin ay sameeyeen Chinese Hindi ama Carabi نحن في صوماليلاند هرقيسة ولدينا من الطعام وجبة الغداء لحم مندي لحم حنيذ هرقيسة صوماليلاند chicken biryani mutton biryani fish biryani tandoori biryani jiilkan daada yari may soo gaadhin Hargeyso waxbarashadeedu ay burbursan tahay ardayduna ay ku fadhiyaan daasado aan lahayn dugsi sare iyo jaamacad ee waxa ay soo gaadheen Hargeyso oo ilaa heer jaamacadeed ilaa dugsi hoose kuraas lagu fadhiyo jiilkan daada yari may soo gaadhin magaalada Hargeyso aan raysla lahayn markii raysli ugu horeeyay laga furay bartamaha magaalada Hargeysana dadkoo timuhu ay ku baxeen ay kuyuu soo galayeen kaasi oo fiidka la xidhi jiray maadaama aanu leer jirin sida magaalada Hargeysa ay ka sinnayd ay soo gaadheen Hargeyso haddii ay u baahdaan rayslayaal ay si heer caalamiya ugu xiranayaan iska daa rayslayaasha Soomaaliland ay helayaan rayslayaal Carab Hindi iyo Ethiopian bay isugu jira haddii aad jiilkan daada yar la weydiisid ma soo gaadheen Hargeyso burbursan waxay ku oranayaan waxaan soo gaadhnay Hargeyso sidana sidaas un bay ahayd ha meel duusan ma arkin sidaan un bay ahayd
meel dusan maad aragto may ma ark markaa suuqo sidan u badartay suuqo dusan baad adu dhismo badan ka socdaan laakiin sanuskaha sidan biska markaa dunta iyo burburiya ma soo gaadhay burbur ma soo gaadhay burburkaas soo man gaadhin iyadoo sano qurux badan maraan u imid magaalada halkan oo dudusama ma laakiinse magaalada saas iyadoo ka hooseysay magaalada halka ama heerka imka ay maraysaa aan marayn meelahan sidan ma arkan ku soo gaadhay wax dunta biyaha ku maadar ma arag isagoo dunsan ma arag laakiin isagoo dhisan ma arkay iska bedeleen laakiin waan sidan bay badankeedu iska dusano baaba ma soo marnay ma soo marnay muuqaalkay daran dhismo sidaasaan ugu yimid anigu iyadoo dhisan baan imid 2013 soo gaarin iyadoo sidana imid meeshana marnaba banaan ma aragto aan dhismo karsan may maan aragan ma meeshana fooq uu taagan yahay fooqaas taagan yahay cad baan dadkan saawar fadhiya askartina joogtaan ilaaliya askartaas haddii muuqaalka madaxtooyada ee wakhtigaasi aad daawateen uu ahaa goobihii ugu quruxda badnaa weliba caasimadda Hargeysa bal imika waxaynu eegi doonaa madaxtooyada Soomaaliland ee wakhtigan 2019 المال